Dagaalku sidiisaba waa xaalad xun oo geysan karo burbur iyo dhimasho. Maqnaanshaha dagaalka waxaa loo yaqaanaa nabad. Dunidan aan ku noolnahay waxaa soo maray dagaalo aad u xun, kuwaasoo malaayiin dad ah noloshooda galaaftay. Haddaba ku soo dhawaada information ku saabsan dagaalkii labaad ee dunida iyo dagaalkii Vietnam. dagaalkii labaad ee adduunka. Sida la wada ogyahay, dagaalkii labaad ee adduunka wuxuu ahaa dagaal caalami ah. Wuxuu ahaa dagaalka taariikhda adduunka ugu foosha xun oo ay ku dhinteen dad tiradooda lagu qiyaasay 65 milyan. Dagaalkan wuxuu ka bilowday qaaradda Yurub sanadku markuu ahaa 1939. Inkastoo ay jiraan khilaaf dhanka taariikhda ah, maxaa yeelay sanadkii 1937 Japan ayaa ku duushay waddanka China, kaasina wuxuu ka mid ahaa dagaalkii labaad ee dunida. Haddaba sababta keentay inuu dagaal labaad ee dunida qarxo ayaa ah heshiisyadii dagaalkii koowaad lagu saxiixay waddanka Belgium-ka. Heshiisyadaas oo dhigaya in Jarmalka uu ku dhawaad 13% hantidiisa waayo, taasoo markii dambe Jarmalka ku qasabtay inuu toos u galo dagaal. Bishii September sanadkii 1939, Jarmalku wuxuu ku duulay ee uu cagta mariyay waddanka Poland. 2 sano kadib 1942, Jarmalku wuxuu duulaan ku qaaday Midowgii Soviet. Dagaalka xilligaas bilowday wuxuu gaaray meelo badan oo ka mid ah dunida. Malaayiin dad ah oo Yahuud ah ayaa si naxariis darro ah loogu laayay dagaalkan intii lagu jiray Holocaust, uuna hogaaminayay hogaamiyihii Naaziga ee Jarmalka Adolf Hitler. Si kastaba ha ahaatee, muddadii uu socday dagaalkii labaad ee dunida, waxaa ku dhintay dad tiradooda lagu qiyaasay 65 milyan. Waana dagaalka ugu foosha xun ee aadanaha soo maray, isagoo geystay khasaare naf iyo maalba. Ilaa hadda, dagaalkii labaad ee adduunka ayaa ah dagaalka kaliya ee la isku adeegsaday hubka nuclear-ka. Vietnam oo ah waddan ku yaala koonfurta Asia, waxay ku hoos jirtay xukunka gumeysiga Faransiiska. Haddaba maxaa sababay dagaalka Vietnam? Asbaabaha keenay dagaalka Vietnam waxay u laabanayaan dagaalkii ay Vietnam kula jirtay gumeystii Faransiiska. Intii lagu jiray dagaalkii labaad ee dunida, ciidamada Japan waxay ku soo duuleen Vietnam si ay dadka Vietnam ula dagaalamaan labada waddan ee Japan iyo gumeystii Faransiiska. Dalka Vietnam waxaa ka bilowday kacdoon ka dhan ah gumeystii Faransiiska sanadkii 1945, markii Japan lagu jibiyay dagaalkii labaad ee dunida. Japan waxay ciidamadeedii kala baxday waddanka Vietnam, dabeetana waxaa meesha ku haray gumeystii Faransiiska, waxayna Vietnam dagaal la gashay Faransiiska si ay uga xoroobdo. Wuxuuna socday dagaalka Vietnam iyo Faransiiska muddo 8 sano ah. Ugu dambeyntiina waxay ka xoroobeen sanadkii 1954. Faransiisku markuu waddanka faaruujiyay kadib, waddanka Vietnam waxaa ka dhex qarxay khilaafkaas oo u dhexeeyay koonfurta Vietnam iyo waqooyiga Vietnam. Bishii June sanadkii 1954, waxaa magaalada Geneva lagu qabtay shirkan oo ujeedkiisu ah in lasoo gabagabeeyo khilaafka ka dhex taagan waddanka Vietnam. Waxaana shirka kasoo qaybgalay wafdi ka kala socday Midowgii Soviet, waddanka Mareykanka, Ingiriiska, China, wadamada Laos iyo Cambodia. Wuxuuna ahaa go'aankii shirka kasoo baxay in si kumeel gaar ah waddanka Vietnam loo kala qaybiyo 2 qaybood, waqooyiga oo shuuci ah iyo koonfurta mid aan shuuci ahayn. Waxaana go'aanada shirka kasoo baxay ka mid ah in sanadka 1956 la qabto doorasho. Haddii nidaamka shuuciga ah uu ku guuleysto doorashada, in waddanka uu markaas noqonayo nidaam shuuci ah. Haddii uusan ku guuleysaninna, in waddanka uusan ahayn markaas shuuci. Si kastaba ha ahaatee, iyadoo lagu ballansanaa inay doorasho dhacdo, ayna Vietnam hoos imaado hal xukun, koonfurta Vietnam iyo waddanka Mareykanka ayaa diiday go'aanadii ka soo baxay shirka. Mareykanku wuxuu ka cabsi qabay in doorashada uu ku guuleysto nidaamka shuuciga ah, wuxuuna Mareykanku diidanaa in shuuciyadu ay ku sii fido koonfur bari Asia, taasoo guul weyn u ah Midowgii Soviet. Iyadoo taa lagu muransanaa muddo yar kadib, jabhadda xoreynta waddanka Vietnam ee lagu magacaabi jiray Viet Cong, oo iyadoo taabacsaneyd waqooyiga Vietnam, ayaa weerar ku qaaday koonfurta Vietnam. Taa waxaa xigtay in madaxweynaha waddanka Mareykanka Lyndon Johnson uu ciidan u soo diro koonfurta Vietnam, waxaana meesha ka dhex qarxay dagaal. Koonfurta Vietnam oo gacan ka helaysay waddanka Mareykanka, halka waqooyiga Vietnamna ay gacan ka helaysay jabhadda xoreynta waddanka Viet Cong iyo Midowgii Soviet. Si kastaba ha ahaatee, muddadii uu socday dagaalkii Vietnam, waxaa ku dhammaaday dad tiradoodu gaaraysay 4 milyan, waana mid ka mid ah dagaaladii ugu xumaa ee adduunka soo mara. Ugu dambeyntii, dagaalkii Vietnam wuxuu soo afjarmay sanadkii 1975, kadib markii koonfurta Vietnam ay isku dhiibtay nidaamkii shuuciga ah ee waqooyiga Vietnam, waxaana meesha ku soo afjarmay dagaalka malaayiinta qof noloshooda galaaftay.